bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu waa maxamed ismaaciil cali, ahna chairmanka shirkadda hubaal. sidaa wada ogtihiin, hubaal traders company waa dhalinyaro ku midooday inay wax u qabtaan bulshooyinka soomaaliyeed. waxaa ka shaqeysa shirkadda hubaal dhalinyaro gaaraysa ilaa 100 qof. waxaan u istaagnay waa in dalka Soomaaliya iyo guud ahaan bulshooyinka Soomaaliyeed kusoo kordhino wax walba awoodeena. waxaan ka shaqeynaa waa suuqa forex-ka. waxaan ka faa'iideysanaa waa bulshooyinka Soomaaliyeed. waxaan ka shaqeynaa waa dhalinyaro laga yaabi lahaa haddii shaqalaan ku dhici lahayd inay tahriibaan ama waxyaabo falal sharci darro ah ay ku dhaqmaan. sidaas awgeed waxaa jirtay maalmahan barbagaado nalaga sameeyey ee ugu weyntahay aniga inaan baxsaday ama aan dalka ka maqanahay. waa sax, dalka waan ka maqanahay. waxaan uga maqanahay howlo shaqo oo shirkadda iyo bulshooyinka Soomaaliyeed aan u qabanayo. waxaa barnaamijkan taageeraya, gacan siinaya ganacsato waaweyn, shirkado naga waaweyn laga yaabay 30 sano inay soo jireen. waxa barnaamijkan diiradda iyo xoogga saaraya waa shirkado maanta aan dhihi karno waxay kasoo horjeedaan horumarka dhaqaale ee u gaaraya dalka. waxay kasoo horjeedaan inay dadka gacantooda ay ka xuruubaan. waxay kasoo horjeedaan in dhalinyaro Soomaaliyeed oo daayar wax qabsadaan. sababahan ku maqanahay aan dalka banaankiisa u jira waxa weeye inaan dhiso xarumo international shirkadda yeela doonto hadduu Ilaahay idmo. waxaan ku guuleysanay oo dhisnay xarunta Nairobi dalka Kenya. waxaan kaloo hadda dhismaheeda wadnaa xarunta Istanbul ee dalka Turkiga. insha Allah waxaan dhisi doonaa xarumo gaaraya ilaa 4 xarumood oo dibadda ah ay ku sii jiraan xarunta dalka UK, xarunta dalka Norway. waxaa jira caqabado badan oo soo gaaraya shirkadaha ka shaqeeya forex-ka, gaar ahaan shirkadda hubaal. sababaha waaweyn ee soo gaaraya waxay tahay in shirkado waaweyn ay ganacsatayaal waaweyn ay ku bixiyaan qarashaad iyo lacago fara badan si loo curyaamiyo loogana hortago horumarka ay sameynayso shirkadda hubaal ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta magacooda iyo maqaamkooda u gaaray guud ahaan dalka iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho ku noolnahay. waxaa jirta in shirkadda ay gaartay horumaro waaweyn aan ku tilaabsanay inaan maanta furno xarumo dalka dibadiisa ah. waxaana shirkadda ugu horeysay ay dhididbada u taagta ilaa 4 xarumood oo ka baxsan Soomaaliya. waxaan kaloo xarumo ilaa 7 gaaray ku leenahay dalka Soomaaliya iyo goboladiisa. waxaa kaloo jira in insha Allah aan rajeynayno inaan wax walbo iyo arrimahan aan maanta u baxnay ku maqanahay si xoojin doono, wax badan ka sii bedeli doono. waxaan aaminsanahay in annaga oo ah shirkadda hubaal aan u imaanay bulshada, aan ka imaanay bulshada, aan u imaanay horumarka bulshada Soomaaliyeed ee gaarleed. anagoo isku duuban walwadeenadeena, macaamiisheena, madaxdeena, waxaan dadweynaha Soomaaliyeed u sheegi lahayn shirkadda hubaal inay jirto, kuna jirto wada dastuuri ah, kuna jirto wada sharci ah. insha Allah waxaan kaloo rajeynayaa inay videogan iyo muuqaalkan arki doonaan qof waliba oo daneynaya shirkadda hubaal, qof positive u daneynaya, qof negative u daneynaya. waxaan kaloo insha Allah la xisaabtami doonaa, cadaalad la hortagi doonaa cid walba oo barbagandada ka faafisay beentana nagu soo oogtay. waxaan kaloo geyn doonaa maxkamada waaweyn dalka Soomaaliya. waa mahadsantiin.